soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa qaybtii lixaad ee filimka inoo socday ka hor inta aan bilaabinne waxaa kaa codsanayaa inaad subscribe channelkeena aan saartid videoganne aad like saartid comment qurux badanne aad noo soo qortid qaybtan waxay ku bilaabanaysaa hooyada Dogen oo ku sugnay mid kamid ah maqaayadaha raaxada leh ay halkaas kula kulmaysaa Johan asagana wuxuu kula hadlayaa hadal iska yeel ah wuxuuna u sheegayaa inuu yahay saaxiibka Dogen sida hooyo kasta ay sameeysanay isla markiiba waxay weydiinaysaa shaqadiisa Johan wuxuu u jawaabayaa inuu yahay CEO ka tirsan shirkadaha amniga marka ay maqasho inuu wiilkeeda leeyahay saaxiib awood leh hooyada aad bay u farxaysaa intaas kadib waxa imaanayo aabaha Dogen ugu dambeyn hooyada waxay dalbanaysaa inay aadayso musqusha waxaana arkaynaa Johan si toos ah inuu u jeesanayo aabaha Dogen Johan wuxuu si caadi ah u sheegayaa in afeetarka Dogen uu hadda ka baxsaday xabsiga isla markaana uu weerari karo Dogen waqti kasta sababtaas awgeedna Johan wuxuu markale soo bandhigayaa caawimadiisa laakiin aabaha Dogen si adag u diidaya xitaa uu yeesaya Johan isagoo arkaya inuusan ahayn qofku ismoodayay muddo yar kadib Johan uu iska baxaya habeenkii markii la gaaray waxaan arkaynaa in guriga Johan uu qof soo galayo Johanne arintaas uu dareemaya markii la baarayay qofka soo galay wuxuu ahaa mid soo diray aabaha Dogen markuu ogaaday jawaabta aadka u xun ee aabaha Dogen taas oo san filaynin wiligiisa Johan si fudud ayuu u jibiyay qofkii soo galay hadda Johan aad ayuu u carooday Dogen sidoo kale aabihiisa dhan kale waxaan arkaynaa Mudano iyo Tajo oo ku nasanayaan saqafka sare ugu dambeyntiina Mudano wuxuu si daacad ah u sheegayaa Tajo sababta Anbi aad ugu neceb tahay asaga markay 20 sano ka hor Mudano wuxuu ahaa qof aad u jeclaa qamriga maalintaas dhacdadaas waxay murmeen xaaskiisa kadib markuu gurigiisa ka sii baxay wuxuu iska sii tuurayaa sigaarkiisa meel u dhow shidaal wuxuu ku soo laabanayaa gurigiisa oo gubtay waqtigaas ma uusan helin geesinimo uu ku badbaadin lahaa xaaskiisa oo ku jirtay guriga sababtaas awgeedna booliisku waxay ku tuhmeen inuu si ula kac ah u gubay guriga waxayna ku xukumeen xabsi halkaas ayay ka bilaabatay naceebka weyn ee u qabto gabadhiisa aabaheeda laakiin nasiib wanaag hadda xiriirkooda wuxuu bilaabayaa inuu dib u soo laabto kadib markii uu dhameeyay wicitaan uu ka helay dambi baaraha Johan aad ayuu ula yaabay sababtoo ah aabaha iyo wiilkiisa Tajon sababta uu caawinayaan ilaa heerkaas wuxuu sidoo kale arintaas weydiiyay eedada Bibi balse eedadu waxay sheegtay inuu suurtagal tahay in Tajon uu siiyay lacag aad u badan laakiin Johan wuxuu u sheegayaa inuu Tajon uu haysanin lacag halkaasna ay ku cadaatay in Johan markuu wax ka shakiyo uu qasab ku yahay inuu ogaado sababta dhabta ah waxyar kadib MB ayaa timid Tajon ay casuumaysaa wuxuuna ka casuuntay quraac laakiin Tajon wuxuu u sheegayaa inuusan niyad u haynin cuntada MB si kama ay u muujisay daryeelkeeda markaas ay isku wareertay kadib waxay aaday dhanka supermarketka MB waxay arkaysaa gaadiid badan oo booliis ah oo roonto sameynayaan markii ay rabtay inay bixiso waxay aragtay dambaaraha inuu u dhow yahay isla markiiba MB waxay qaadanaysaa koofiyadeeda nasiib wanaag dambaaraha ma uusan garanaynin inay MB tahay wuxuuna u maleynayay inuu kaliya soo celinayo sigaarkiisa intii ay wadada ku jirtay MB waxay wacday aabaheeda laakiin aabaha uu ma jawaabayo ugu dambeyntiina nasiib wanaag way ku guuleysatay inay baxsato isla markiina guriga ayay gashay waxayna wargelisay aabaheeda iyo Tajon wax hadda socda dambaaraha wuxuu hore u ogaaday meesha ay ku sugan yihiin intaas kadib Tajon isla markiiba guriga ayuu ka baxay wuxuuna qaatay mootadiisa sidoo kalena odayga wuxuu u tagay meel aqoon isweydaarsi ah si uu saliida ugu bedelo waqtigaas dambaaraha aad buu u xanaaqay isagoo dareemaya in lagu ciyaarayo laakiin Mudano wuxuu u sheegayaa inuusan fahmin waxa uu dambaaraha ka wado isla markaana uu ka cararayo sababtoo ah hore ayuu u sheegay inuusan ku raaxaysanaynin joogista dambaaraha iyo saaxiibkiisa hadda wuxuu ku ekaaday inay Ilaahay baryaan oo kaliya maadaama aysan waxba samayn karin ka hor inta uusan Mudano bixin Mudano iyo Sabir ayaa u soo dhawaaday wuxuuna weydiiyay halka uu Tajon hadda ku sugan yahay laakiin Mudano si degdeg ah ugu jawaabay Tajonkii ayaad ka hadlaysaa ayuu dhahay Mudano Sabir ma Tajonka baxsaday oo xabsiga mid Tajon doonayo inuu magaciisa nadiifiyo maadaama uusan samaynin dilkaas markuu hadalkaas maqlay Mudano Sabir kaliya uu iska aamusay waxaan ku noqonaynaa guriga markii Mudano iyo MB ay yimaadeen waxay arkeen Johan oo halkaas jooga saaxiibka MB-ne wuxuu ku sugnaa xaalad suuxdin ah MB aad bay u carootay iyadoo ka yaaban sida uu sameyn karo arin aad u foolxun gudaha guriga ee saaxiibteeda Johan si toos ah u weydiiyay waxa ay dhab ahaan ka doonayaan Tajon Johan ma fahmin si aqli ah Tajon ma lahan lacag mana lahan awood haddana maxaa aabe iyo gabadhiisa u diyaar yihiin inay caawiyaan ilaa heerka kaliya xiisaha iyo shakiga Johan dartooda wuxuu si degdeg ah ugu duulay Busan si uu jawaabtaas u soo helo laakiin dabcan MB aabaheeda midkoodna ma aysan ugu jawaabin Johan rabitaankiisa waxa ku laabanaynaa Tajon hadda wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqa Dogen wuxuu joogaa meel sar oo ah halka uu doonayo inuu ku sii jiito Tajon markii Tajon halkaas yimid waxaa muuqdo rag badan oo ka tirsan ciidamada Mudane Kim halkaane Mudane Kim wuxuu diyaariyay raggiisa ugu fiicnaa maadaama uu hore u soo xulay ugu dambeynna Dogen wuxuu bilaabay hadal iska yeel ah isagoo sheegay inuusan ahayn qofka asaga qaladka geystay balse uu yahay Johan maadaama Johan uu qorsheeyay wax walba isagana uusan ogeyn in Tajon uu yahay afeetarkiisa markuu taas maqlay Tajon aad ayuu carooday Tajon wuxuu ku guuleystay inuu ka adkaado dhamaantooda xilligaas Mudane Kim iyo Dogen waxay ku sugnaayeen gudaha gaarigooda laakiin markuu Dogen arkay Tajon oo qolka ka soo baxayo cabsi ayaa qabsatay isla markiina wuxuu galay gaarigiisa wuxuuna ogaanayaa Dogen inuu baxsaday gaarigiisa
sportska ah. Tajon wuxuu qaatay mootidiisa si uu u dabagalo Mudan Kim sidoo kale uu dabagalay. Halkaasna waxaa ka bilowday inay isbursadaan. Waxaa arkaynaa Mudan Kim iyo kooxdiisa oo ku guuleystay inay Tajon ku go'doomiyaan. sidoo kale Dogen wuxuu ku sugan yahay xaalad liidato oo geeru dhow. si kastaba Dogen weli wuu diidan yahay inuu qorto dhammaan dambiyadiisa. muddo yar kadib Johan ayaa soo wacayo. Johan wuxuu sheegayaa inuu aad ugu farxsan yahay in uu ka badbaado u yahay Tajon maadaama uu tan iyo bilowgii doonayo in Tajon uu noqdo qof kale hadiyadiisa. markaas Tajon wuxuu fahmay in gaadhiga xamuulka ah uu ahaa mid Johan uu soo diray. dhammaan falka Tajon loo qariyo aysan u ogeyn booliiska. intaas kadib Johan iyadoo aan wax naxariis lahayn ayuu Tajon weydiiyey inuu doonayo inuu la shaqeeyo. Johan wuxuu rabay inuu asaga noqdo taajir kadibna oo siiyo lacag 5 milyan oo lacagta Kuuriyaanka ah haddii uu Tajon oo si xad dhaaf ah u shaqeeyo. ma awood inuu kasbado lacagtaas intaas leeg. laakiin dhinaca kale Johan wuxuu sheegayaa in wax kasta la bixiyo aysan dib u celi karin waqtiga isla markaana aysan soo celin karin walaalkiisa. markuu taas maqlay Johan si qabow ayuu ugu jawaabay inuu dilay ninkii dilay walaalkiisa Tajon kaas oo ahaa dhakhtarkii waqtigaas. Tajon wuxuu sheegay in waxa uu hadda doonayo ay tahay in Johan uu kusoo jiito meesha sare isla markaana uu soo afjaro. markuu taas maqlay ugu dambeyn Johan wuxuu fahmay in Tajon uusan aqbalaynin daacadnimadiisa. ugu dambeyn Johan wuxuu aaday guriga aabaha Dogen. sidii qiyaasta ahaydna Johan wuxuu dilay hooyada sidoo kalena aabaha Dogen. hadda Johan asagoo muujinayo dabeecadiisa nafsi xumada ah wuxuu qirtay inuu isaga dilay labadiisa waalid. sababta waxay ahayd in Johan uu aad ugu carooday markii uu ogaaday in aabihiisa iyo hooyadiisa ay doonayaan inay qaybiyaan mid ka mid ah hantidooda een ugu deeqaan kaniisadda. Johan wuu necbaa wuxuu go'aansaday inuu dilo labadiisa waalid isagoo mid ku dhuftay ilaa 130 jeer. warninka nin caadi ma ahane. sikadiisa waxa xabsiga ka soo baxay maxbuus. ugu dambeyn Johan wuxuu marqaati ku furay booliiska isagoo sheegay inuu maxbuuskaas uu yahay kii dilay labadiisa waalid. wax yar kadib maxbuuskaas waxaa soo baxsaday booliiska isla markiina way toogteen. halkaas ayuu ku noqday Johan qof nafsidiis aad u xun tahay oo aad u naxariis daran. wuxuuna helay heeb uu ku qariyo dambiyadiisa isagoo ku eedeynayo dad kale. hadda Johan wuxuu yimid guriga Mudano wuxuuna bilaabay inuu eego guriga agagaarkiisa. wuxuu taabtay qaar ka mid ahaa alaabta ilaa uu ka helay kitaab ay ku jiraan sawirada Mudano iyo gabadhiisa. wax yar kadib Johan wuxuu gubay sawirkaas. haddaba sidee u aragtaa ma Mudano ayaa noqon doono bartilmaameedkiisa xiga? haddana halkaas ayaa noogu dhammaanaysaa qaybtan. waxaana sii wadi doonaa qaybta kaleeta ee soo socoto. waana mahadsantahay daawashada fiidiyogan aad daawatay.